السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذلكين هل كان يقدر داون و يريسو official هذا بالضبط هذه تمركي كوريسي ومقال كان داون أما بعد صوب وقتي جنرال كان kusoo dhawaada qaybtii labaad ee guurka dhaqanka iyo Soomaalida. Naagta mar la guursado ee la soo furo waxaa la yiraahdaa garoob. Haddii uu ninkeeda dhintana waxaa la yiraahdaa armalo. Ilmaha ugu horeeya ee ay hooyadu dhasho waxaa la yiraahdaa curad. Kan ugu dambeeyana waxaa la yiraahdaa guro dambeys. Ninka naago shukaansiga iyo naago shirinta badan waxaa la yiraahdaa shabeel naagood. Ninka haweenka si hoose ula faragashta arrimaha guriga sida kushiinka waxyaalaha la xiriira waxaa la yiraahdaa qorqode. Naagta nadaafadda liidata ee korkeeda caruurteeda iyo aqalkeeduba aan nadiifin waxaa la yiraahdaa areebo ama basari. Naagta ninkeedu dhinto ee aan guursan ee uu guursado ninka dhintay walaalkiis waxaa la yiraahdaa dumaal. Sidoo kale ninka ay naagtiisa dhimato ee la siiyo gabadha la dhalatay xaaskiisii dhimatay waxaa la yiraahdaa xigsiisan. Naagta la qabo ee aan ninkeeda la dhaqmin waxaa la yiraahdaa geesir. Haddaba haddii aad ka hesheen fadlan muuqaalka like inoo saara, asxaabtiinana la sii wadaaga, commentigiinuna waa inoo muhiim ee qaybta commentiga inoogu reeba. Tan iyo intaynu barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doono waa Cabdullaahi Yariisow oo idin leh amaana Allah.